بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahaygi marka la noo suurtageliyay annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaanu soo haynay axkaamta la xiriirta soonka ayaan ku soo dhex jirnay. qaybtaana waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha uu samaynayo qofka sooman haddii loogu yeero raashin loogu yeero muxuu samaynayaa. waxaan fiirinaynaa haddii qofka sooman loogu yeero raashin iyo allabari iyo sab iyo waxaa rabta dheh, haddii loogu yeero ama martiqaad, falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun, aniga waan soomanahay ha yidhaahdo. sawaa'an kaana sawmu fardin aw naflin, waxaa isku mid ah soonkaas uu sooman yahay soon farad ha ahaado, soon sunno ha ahaado. waxaa la rabaa inuu yidhaahdo aniga waan soomanahay inuu yidhaahdo. waliyadac lisaaxibi aطacaami, waxa waaye qofka raashinka ugu yeeray ama sabta ugu yeeray, allabariga ugu yeeray ama martiqaadka ugu yeeray raashinka qofkii sameeyey inuu u duceeyo. waliyadcu lisaaxibi aطacaami fain kaana yashuqu calaa saaxibi aطacaami sawmahu, hadduu qofka raashinka sameeyey oo uu dhibsanayo soonkaaga, waxa waaye istuxiba lahu alfitr. soonka maadaama uu sunno ahaa, qofkii raashinka kuu sameeyeyna uu dhibsanayo waa soomanaya, inaad tiraahdo waxaa sunno ah inaad afurto. wa ilaa falaa. haadaa in kaana sawmu tatawuc, haddii uusan qofka saaxiibu tacaamka ah aan dhibsanaynin oo aan dhibaato ku ahayn, soonkaaga waa sii wadanaysaa. waayahay waa goormo? waa idaa kaana sawmu tatawuc, soonka hadduu yahay soon tatawuca sunno ah hadduu yahay. fa in kaana sawmu waajiban xurima alfitru, hadduu soonka yahay soon waajib ah in la afuro xaaraam waaye. waxaana u daliila xadiiskii sunnada rasuulka ayaa u daliila. marka hore waxa waaya xadiiskii abu hurayra uu wariyey radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala, nabiga ilaahay wuxuu yidhi, idaa duciya axadukum ilaa طacaamin, qof idinka mid a haddii loogu yeero raashin, wa huwa saa'imun, asagana uu sooman yahay, falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun, aniga waan soomanahay. daliilka labaad waa xadiiska anas wariyey radia allaahu canhu qaala, wuxuu yidhi, dakhala annabiyu, nabiga ayaa soo galay sala allahu calayhi wasalama calaa ummi sulaym, gabadha ummu sulaym ayuu u soo galay. markaasaa faatihi bitamrin wa samnin, faatatii waxay u keentay bitamrin wa samnin, timir iyo subaqay u keentay. fa qaala, rasuulku wuxuu yidhi, ciiduu celiya samnakum, subagiina waxaad ku celisaan fii siqaa'ihi, sibraarkiisii meeshiisu ku celiya. wa tamrakum,
timirtiinana fii wicaa'i weelkeeda ku celiya fa innii aniga saa'imun waan soomanahay. uma qaala rasuulku wuxuu yidhi ilaa naa'ixatin min albeyti. uma qaama rasuulku wuu istaagay ilaa naa'ixatin min albeyti, dhinac guriga ka mid a ayuu istaagay. fa sallaa hayru maktuuba, wuu ku dukaday guriga ayuu meel ay ku dukadaan ayuu u sameeyey, wuu dukaday salaad ayuu dukaday oo aan waajib ahayn. fa dacaa liummi sulaym wa ahli beytiha, wuxuu u yeedhay ummu sulaym gabadha la yidhaahdo iyo wa ahli beytiha, dadka guriga la joogo way wada dukadeen. waa macnaha salaaddii sunnada ah ayay jamac ku wada dukadeen. meel ay ku sunnaystaan ama mawlacna waa waxa waaye xarigga ayuu uga jaray. macnaha salaadda uu dukanaayey waxay ahayd salaad oo sunno ah, salaad sunna ayay ahayd. marka salaadda sunnadana waxa waaye waxay u baahan tahay meel gaara ay ku dukadaan. marka waxay ka codsadeen rasuulka sala allahu alayh wasalama in uu meel ugu calaamadeeyo ama uu maxaan ku odhahda meeshaasi xarigga uga jaro si ay ugu dukadaan. marka intaas marka ujeeddadu laga leeyahay raashinkii loo keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalama hal celiyuu dhahay, maxaa yeelay anigu waa soomanahay. intaas markaa meesha uga soo baxno, haddana waxaan u gudbaynaa soonka guud ahaan waan ka soo hadalnay iyo waxyaabaha soonka ramadaanka la xiriira. laakiin si gaar ah marka waxaan fiirinaynaa ramadaanka, soonka ramadaanka la soomaayo. bisha ayaa ramadaan la yidhaahdaa. soonkana mar walbana waa la soomaa. bisha ramadaan oo waajibka ayo iyo bilaha kaleba soom sunno ayaa la soomaa. soonka ramadaanka iyo khayru ramadaan oo dhan waan ka soo hadalnay. laakiin ramadaanka si gaar ahaana ayaan ugu soo noqonnay fadaa'isha soonka bisha ramadaan ay leedahay. kow waxa waaye soonka ramadaanka tukafiru bihi alkhataaya, gefafka ayaa lagu asturaa. tukafiru bihi alkhataaya, gefafka ayaa lagu asturaa. waxaana u daliila marka, waxaa u daliila xadiiska uu wariyey abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama, rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi alsalawaatu alkhamsu, shanta salaadood, waljumcatu ila aljumca, jumcada ilaa jumcada kale laga gaaro, wa ramadaanu ilaa ramadaan, ramadaanka ilaa ramadaanka kale laga gaarayo. waxaa la yidhaahdaa qaala ibnulfaris baa wuxuu yidhi alramdu, ramadaankii ayaa wuxuu rabaa inuu si fiican u qeexo. ramdiga xarulxijaarati ayaa la yidhahdaa. macnaha ereyga ramadaan meesha laga keenay, ramdiga waa dhagax kulul waaye. min shiddati xarri shamsi, qoraxda kulaalkeeda ayaa aad ugu dhacay. wa ardu ramda, waxaa kaloo la yidhahda dhul oo ramdi ah ayaa la yidhahdaa. macnaha dhulka ramdigana waxa waaye xaaratu lxijaarati, dhagaxyihiis ay kulkulul yihiin. wadakara qowmun, dad kalena waxay sheegeen anna ramadaanka ishtaaqahu min shiddati alxarri. waxaa la yidhaha ramadaanka markii laga hadlaayo ishtaaquhu min shiddati alxarri, waxaa laga soo ishtinqaaqay oo lagala soo dhex baxay ereyga ramadaan min shiddati alxarri, kuleelka daran dartiisa yaa magacaasi laga soo qaatay. maxaa yeele liannahum carabta lamaa naqaluu ismu shuhuuri, bilaha magacyahooda markay soo raraayeen can illugati alqadiima, luuqadii hore oo la isticmaali jiray, sammuuha liasminatin, bisha waxay ku magacaabi jireen zamanka. fa waafaqa ramadaan magacaasi wuxuu waafaqay ayaamu ramdi alxarri, maalmaha waxa waaye cagogubta ee kulaalka uu jiro ayuu waafaqay. saasay ramadaan oo dhahay. maqaayiisu luga ayaa laga soo qaatay. marka wa ramadaanu ilaa ramadaan, ramadaanka ilaa ramadaanka kale laga gaaro, mukafiraatun waa lagu asturaa
maa baynahunna inta u dhaxaysa ida jtunibat ilkabaa'iru markii la iska ilaaliyo kabaa'irta la iska ilaaliyo dembiyada waaweyn. kaasi waa mid. fadliga koowaad waa kaas, fadliga macnaha dembi dhaaf waaye. fadliga labaad wuxuu ka mid yahay ramadaanka min asbaabi makfirati dunuubi, asbaabaha dembiyada lagu dhaafo. makfiratu dunuub waxa waaye dembiyada waxyaabaha lagu dhaafo, waxa dembiga in la dhaafo sababa ayuu ramadaanka ka mid yahay. ramadaanka wuu ka mid yahay. marka waxaan fiirinaynaa adilada marka u daliilka ah sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalam. xadiis uu wariyey abu hurayra radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay ayaa qaala wuxuu yidhi, man saama ramadaanan, qofkii sooma ramadaan, bisha ramadaan qofkii sooma, iimaanan wa ixtisaaban, rumaysanaan oo ilaahay uu rumaysan yahay darteedana u sooma, wa ixtisaaban ajarka laga helaayo aruurso ay ka tahay darteedana u sooma, gufira lahu maa taqaddama min denbih, waxaa loo dhaafayaa dembigiisa inta hore. imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa soo saaray. xadiis kaleo abu hurayra wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi, ragima anfu rajulin qof sankiisii ayaa booroobay oo waa dulloobay waay, oo qofkaasoo dakhala calayhi ramadaan uu u soo galay, humma insalakha kadibna ka siibtay oo ramadaan dhammaaday, qabla an yugfara lahu inta aan dembi dhaaf uusan ka helin, aan loogu dembi dhaafin ka horna ramadaan guura, qofkaasi wuu dulloobay waa macnaha. waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa waaye taas waa daliilkii oo waxa waaye loogu maxaanku rahdaa ramadaanka inuu yahay sababulmakfira, sababta dembiga lagu dhaafo. waxaa kaloo ka mid ah ramadaanka fadligiisii waa min asbaabi dukhuuli iljanna, sababaha jannada lagu galo ayuu ka mid yahay. daliilka ugu horeeyana waa sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalam. xadiiskii wariyey jaabir radi allahu canhu anna rajula nin ayaa sa'ala rasuula allahi, rasuulka ayuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalama, faqaala wuxuu yidhi, yaa rasuula allaahi, rasuulka ilaahayow, idaa ara'ayta bal ka waran, idaa sallaytu almaktuubaati, shanta salaadood oo faradka haddii aan dukado, wa sumtu ramadaana aan soomo, wa axlaltu alxalaala, xalaashana aan xalaashado, wa xaramtu alxaraama, xaaraantana aan iska xaaraam yeelo, walam azid calaa daalika shay-an, aan waxba ku siyaadinin, a adkhulu ljannata, jannada ilaahay ma gelayaa? faqaala nabiyu, nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, nacam waad gelaysaa buu yidhi, jannadu waa gelaysaa ayuu yidhi. marka ramadaanka fadligiisa ayaa waxaa ka mid ah waxa waaye inuu qofka janno uu ku gelaayo. qaybtan waxaan fiirinaynaa bisha ramadaan fadligeeda. mar haddaan ogaanay khasaa'isteedii ayaan fiirinaynaa, waxyaabaha ay la gaar tahay bishaani bilaha kale ay kaga duwan tahay, khasaa'isu shahri ramadaan. kow waxaan fiirinaynaa bisha ramadaan waxay bilaha kale kaga duwan tahay, qur'aanka ayaa la soo dejiyey, fiihi unzila alqur'aanu, qur'aanka ayaa la soo dejiyey. waxaana u daliila qur'aanka, ilaahay baaba u daliila. ilaahay qur'aankiisa uu yidhi, shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaatin min alhudaa waalfurqaan. shahru ramadaan, bisha ramadaan waa bisha aladii unzila fiihi alqur'aanu, qur'aanka la soo dejiyey, hudan hanuun xaal ay tahay linnaasi dadka, iyo wa bayinaatin min alhudaa waalfurqaan,
وحواي عدين لا عدينا يهنونك إيا كالبحة وحواي أي كالساري سواي. وكان هذا في ليلة القدر من رمضان هبين كقرآن كالسود جي وهبين ليلة القدر أو بشهر رمضان أي كم دهيت وإلهي قرآن كسوكيري إنا أنزلناه أنك أيا سود جليب إلهي قرآنك في ليلة القدر هبين ليلة القدر اللي لادو أيا سود جني سورة القدر آيات كوادواي إلهي آيات كان وحكويري سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنك أيا سود جني قرآنك هبين بركيسان أيا سود جني هبين كبركيسان وهبين ليلة القدر وبشر رمضان إنه كجرتا مركا وحواي خصائص بشر رمضان أي لا ذاهي قرآن كان قيمها بدن أيا لنسود جي خصائص هذا لبعض وحا كمدا فيه تفتح أبواب الجنة جنة البابير دي أيا لفرفرايا وتغلق أبواب النار نار البابير دي نوال حرحرايا وتصفدت الشياطين شياطين تنوال السلسلة دينيا وحانا أدليل السنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أوري أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري إذا جاء رمضان مركو يمادو فتحت أبواب الجنة جنة البابي دي ولا فرفرايا وغلقت أبواب النار نار البابي دي ولا حرحرايا وصفدت الشياطين شياطين تنوال السلسلة دينيا وحواي وحيابها خصائصته بشهر رمضان أي لا كالوحا كمدا العمرة فيه تعدل حجة عمرة العمري سنايو رمضان كدحديثة وحي أدغانتا حج وحانا أدليلة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أوري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السجي أبي سمع الله كلا قال وحيري قال رسول الله رسولك إلهي وحيري صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار حويني أنصار كمدة أي رسولك وحكيري ما منعك هبلي محاكو ديري أن تحجي معنا إنا نلحجده قالت وهيتري لم يكن لنا إلا الناضحان أنك ما هيسنا وملهن إلا لبا حالات أيان هيسنا فحج أبو ولدها وابنها على ناضحة وحواي لبدي حالات مد كمدا وذات كيغا أيا كحجيي أبو ولدها ويهي وابنها ننكذا عنقذي أيا وحواي هل ناف أي كحجيين أو كسفرين وترك لنا ناضحا وحاو نوغتغي هل كلا أو تنضح عليه وحواي أن كسو هوش كقبسنو بيها أهادو إيو وحواي وحي ربانا أهادين قال وحيري رسول صلى الله عليه وسلم مرة دي فرصة نقول حجسة آذن هيسانين أو واحد كو حجسة أم كو ديار سنين وحي رسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري رمضان مركي لقارو حجك ما دام أن لا آلي ويسي رمضان مركي لقارو عمريسو فإن عمرة فيه عمرة رمضان كالعمريسانايو تعدل حجة وحي أدق أنت حج أجر كذا وكرا إليه رواية كالو عبد الله بن عباس وريي رضي الله عنهما قال وحيري لما رجع النبي نبي مركو صلى صلى الله عليه وسلم من حجته حج كيسي مركو كسر نغضي رسولك قال لأم السنان الأنصارية قبل أم السنان لهذا وأنصارت كمدة أي رسولك حكيري ما منعك من الحج تيهو على امرأة من الأنصار أم باليري تنمقع إذا لشيء أم السنان حاكو دي أم السنان إننا لا حجده
qaalad waxay tiri abu fulaan tacni zawjuha wadaadkeeday u jeedaaye ninkii hebel ah kaana lahu naadixaani laba halaad buu lahaa xaja calaa axadihimaa midooda ayuu ku xajiyey waaye walaakharu yasqii ardan lana midda labaadna dhulka ayaa lagu waraabiyaa dhulka yaa biyo loogu soo aroora lagu waraabiyaa qaala uu yidhi fa ina cumrata fii ramadaan taqdii xajatan maci macnaha cumrada oo ramadaanka aad cumraysanayso waxay kaa gudaysaa oo ku ajir tahay xaj aad ila xajiday ay kuu gudaysaa wa haada alfadlu laysa mukhtasan bi haadihi almar'a waxdaha fadligaani oo gabadhan loo sheegay khaas kuma aha gabadhan keligeeda bal huwa caamun lijamiici almuslimiin waa caam waaye si guud ah ayuu dadka muslimiinta dhammaantooda ayay u wada helayaan wa kaana salafuna saalix raximahum ullahu dadkii naga horreeyey salafuna saalix allah ka raadi noqdeen waxay ahaayeen aladiina yusamuuna alcumrata fii ramadaan alxaju alasgar dadkii naga horreeyey salafuna saalix naxariista ilaahay korkooda laha yeelee waxay ku magacaabi jireen cumrada ramadaanka xaj yar ayay dhihi jireen maxaa yeele lianna almuctamir fii ramadaan qofka cimraysanaya ramadaanka in caada ilaa baladihi waddankiisii hadduu ku soo noqdo faqad adaa bisafarin kaamilin lilcumra daahiban wa iyaaban wuxuu la soo noqday safarkiisii dhammaystiran cumro dhammaystiran kaamilan lilcumrati daahiban intuu socday iyo wa iyaaban markuu soo noqdaba fii shahri ramadaan faxtaja lahu xurmatu shahri ramadaan faijtamaca lahu qofka waxaa u ururay waxaa iskugu tegay xurmatu shahri ramadaan bisha ramadaan xurmadeedii wa xurmatu lcumrati cumrada xurmadeedii wa saara fii daalika kaasi marka wuxuu noqday min sharafi alasmaani waalmakaani sharaf wuxuu kulansaday sharafta zamanka iyo sharafta booska makaanka ayuu isku kulansaday yunaasibu waxaa u munaasab noqonaya an yucdala bima fi lxaji macnaha in la barbar dhigo oo la garab dhigo xajka waxyaabaha laga helayo oo min sharafi zamaani waxa waaye zamanka sharaftiisii iyo waxwaaye iyo makaankiiba wa huwa ashahru lxaji wa sharafu lmakaanina waxa waaye kacbadii waay macnaha dhulka xurmada leh intaas ayuu kulansaday kama ana hada alcumra laa tucna can alxajati alislaami alwaajib laa tugni can xajati alislaami alwaajib waxa waaye cumrada ramadaanka la cumraysanaya xajay u dhigantaa markii la leeyahay cumradaasi loolama jeedo ama waxba kama tarayso xajkii islaamka lagu lahaa kama gudaysa waa biijmaaci ahli lcilmi dadka ahlucilmiga siday ku kulansan yihiin waay falaa yalzamu laazim ma noqonayo min mucaadalati shayin lishayin macnaa laazim ma aha macnaa laazim kama dhalanayo shay mucaadalo lagu sameeyey an yakuuna mujzi'an canhu inuu ka gudaayo shaygan iyo shaygan haddii oo laisbarbar dhigay macnaheedu ma aha shaygiyuu kaa gudaya ma aha fa huwa yucaadiluhu fi thawaabi laa fi lijzaa'i canhu waxa waaye wuxuu u dhigmaa xagga thawaabka u dhigmaa laakiin guditaankii waajibkii oo kaa saarna kaama gudaayo waayo marka taasna waxa waaye in lagu buraarugsanaado uusan qofka isdhihin waxa waaye ramadaanka oo cumrada xajkii oo dhanay kaa gudaysaa qofkii uusan isdhihin macnaha thawaabkunbay iskala mid yihiin maahane xajkii waa lagaa rabaa haddii awalba aadan xajinin qaybta kalena waxaan fiirinaynaa ramadaanka waxaa ku jirta habeen oo leylatulqadri la yidhaahdo waxa waaye qaybtan leylatulqadriga fadligeedii kow wamaa yushracu fiiha leylatulqadriga dhexdeeda markii lagu dhex jiro waxyaabaha la jideeyey iyo wa waqtuhaa waqtiga leylatulqadriga
ayaan fiirinaynaa. waxa waaye kow waxaa la yidhaahdaa fadlu leylati alqadri. leylatulqadriga fadligeeda unzila fiihi alqur'aanu, sida bisha ramadaanba fadaa'isheedii ama khasaa'isteeda aan uga hadlaynay oo leylatulqadrigana bishaasi ay ku jirtay darteedii ramadaanka fadliga uu ku yeeshay. waxaa kaloo la yidhaahdaa leylatulqadriga gaar ahaana qur-aankayaaba la soo dejiyeyba habeenkaas. ilaahay qur-aankiisuu ku yiri innaa anzalnaahu fii leylati alqadri, annaga ayaa soo dejinay buu ilaahay habeen leylatulqadri la yidhaahdo. waxaa la yidhaahdaa yuqadaru waayahay yuqadiru allaahu subxaanahu wa tacaala fiiha kullu maa huwa kaa'inun fi sana. leylatulqadriga waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaraa oo jaangooyaa hawaaye fiiha leylatulqadriga dhexdeeda kullu maa huwa kaa'inun fi sana, sanadka oo dhan wixii dhici doona ayaa la qadarayaa. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi fiiha yufraqu, habeenka leylatulqadriga waxaa la kala saarayaa kullu amrin xakiimin, amar kasta oo xakiim ah yaa la kala saarayaa. amran min cindina, amar oo ilaahay waxa waye agtanada ahaaday waayo. innaa kunnaa mursiliin, annaga ayaa rusushana annaga ayaa soo dirnay. mursiliin annaga waayahay. suuratu dukhaan aayadda shanaad, aayadda afraad ilaa aayadda shanaad. fa fii tilka leyla, habeenka leylatulqadriga ayaa yuqadaru allahu subxaanahu wa tacaala maqaadiiru lkhalaa'iqi. habeenka leylatulqadriga ayaa ilaahay wuxuu qadaraa khalaa'iqda maqaadirtoodii fii madaari alcaami, sanadka oo dhan. wa yuktabu fiiha alaxyaa, waxaa la qorayaa kuwa noolaanaya, waalamwaad kuwa dhimanaya, wannaajuun kuwa badbaadaya, waalhaalikuun kuwa halaagsamaya, waasucadaa kuwa dhuroobaya oo guulaysanaya, waalashqiyaa kuwa guuldarsanaya oo fashilmaya, waalcasiizu kuwa cizi i sharaf waxa waaye helaya, waaldaliil kuwa sharafta laga xayuubinayo. wa kullu maa araadahu allahu tacaala, wax kastoo ilaahay rabo subxaanahu wa tacaala fi sanati almuqbila, sanada soo socota. yuktabu waxaa la qoraya fii leylati alqadri haadihi, habeenkan ayaa waxaan o dhan la qoraya. leylatulqadriga fadligaas gaaruu leeyahay. waxaa kaloo ka mid ah annahaa leylatun mubaaraka, waa habeen barakaysan. ilaahay qur-aankiis wuxuu ku yidhi innaa anzalnaahu, annaga ayaa qur'aanka soo dejinay fii leylatin mubaaraka, habeen barakaysan. suuratu dukhaan aayadda 3. waxaa kaloo ka mid ah leylatulqadriga fadliga gaarka ay leedahay. waxaa la yidhaahdaa annahaa leylatun mubaaraka, waa habeen barakaysan. alcibaadatu fiiha, cibaadada la samaynayo tufdil waxay ka fadli badan tahay alcibaadatu fii 1000 shahrin, waxay ka badan tahay 1000 bilood cibaado oo aad la timid yay ka fadli badan tahay. ilaahay qur-aankiisu ku leylatulqadri khayru min 1000 shahr, habeenka leylatulqadriga bil 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay. marka falcibaadatu fiiha afdalu cinda allaahi, cibaadada habeenka leylatulqadri la samaynayo ilaahay agtiisa waxay ka fadli badan tahay min cibaadati 1000 shahrin, 1000 bilood cibaadadeedii. walaysa fiiha leylatulqadri, oo aysan ku jirin habeenka leylatulqadriga. wa 1000 shahrin, 1000 biloodna tacdil waxay u dhigantaa 83 sano iyo 4 bilood ayay u dhigantaa. waxaa kaloo ka mid a fadligeeda waaye yunazilu fiiha jibriil waalmalaa'ika bilkhayri waalbaraka, waxaa soo degaya habeenkaasi malaku jibriil iyo malaa'igta kale khayr iyo barakay la soo degayaan. oo ilaahay yidhi tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu, malaa'igta ayaa soo degaysa iyo malaku jibriil fiiha habeenkaasi dhexdiisa, waxayna la soo degayaan biidni rabbihim, waxay ku soo degayaan biidni rabbihim, rabbigood idinkiisi, min kulli amrin, amar kasta iyagoo wataan. suuratulqadri aayadda 4 waay. fatanzilu lmalaa'ika, malaa'igta soo degitaankeeda fiiha habeenka ila alardi dhulku soo degayso
waxay la soo degaysaa bilkhayri walbarakati walraxmati walmaqfira khayr iyo barako iyo naxariis iyo dembi dhaaf leylatu lqadri salaamun waxaa ka mid a leylatulqadriga fadligeeda waa habeen badbaado ah waay oo ilaahay yidhi salaamun hiya habeenkaasi waa badbaado xataa matlaci alfajri ilaa waaga uu ka dilaacayo salaamun hiya habeenkaasi waa nabadgelyo xataa matlaci alfajri ilaa fajarka uu ka soo dhalanayo salaada subax waayo fiihi waxaa fii leylati alqadri fa fii leylatin khaaliyatan min ashari waaladaa habeenka leylatulqadriga waxay ka maran tahay shar ma jirto waxa waaye dhib ma jiro wa tukthiru fiiha waxaa la badiyaa addaacatu daacada ilaahay baa la badiyaa wa acmaalu lkhayri acmaasha khayrka ah ayaa la badiyaa wa tukthiru fiiha assalaama min alcadaab waxaa la badinayaa nabadgelyada cadaabka ilaahay laga badbaadayo fa hiya salaamun kulluhaa waxeedoo dhan waa wada badbaadadaas waayo marka waxyaabaha habeenka leylatulqadriga ah si gaar ahaana la jideeyey in la sameeyana casharada kuwan ku xiga ayaan ku sharaxaynaa ama qaybtan halkan ayaan ku joojinaynaa ilaahay hanagu anfaco haadaa wabillaahi tawfiiq wallaahu calaa maa aquulu wakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh